Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba ku soo dhawaada janalka Xayla Media. Maanta waxaan inii wadaa sheeko ka duwan sheekooyinkii hore aan inii soo dhigi jiray. Sheekadan waxay ku saabsan tahay ciyaalka ama ilmaha yaryarka ah oo la dhibaateeyo, lagu xadgudbo jidhkooda iyo la laayo, niyad jab iyo waxbarashada oo laga eriyo, oo macallinku uu ku khasbo ama cid kasta oo kale ay ku khasabto inay waxbarashada ama himiga ardayga uu lahaa oo lagu xadgudbo. Sheekadan waa qaybtii koobaad ayay ahaan doontaa insha allahu tacaala. Waxaan ka dhigi doonaa 2 qaybood ayaan ka dhigi doonaa. Bal ku soo dhawaada mar labaad. Ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad quraan wuxuu ku leeyahay laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun xasana. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waxaa nebi maxamed idinku sugan ku dayasho wanaagsan ayaa idinku sugan, ayuu ilaahay yidhi. aayad kale quraan ilahay wuxuu ku leeyahay ina allaha ya'muru bilcadli walixsaan. ilaahay wuxuu ina farayaa cadaalad iyo ixsaan ama wanaag ayuu ina farayaa. sidaa darteed ilmaha in sida loo cadaabo ma nebi maxamed ayaad kaga dayanaysaa mise adiga ayaa iska samaystay? nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam dabeecaddiisa ma ahayn. anas binu maalik ayaa waxaa laga wariyey 10 sano ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u khidmeynahayay, weligay waxaan sameeyene maxaad u samaysay imuusan dhihin. wax aanan samaynina maxaad u samayn weyday imuusan dhihin. sidaa darteed waxaa laga maarmaan ah haddii aad tahay qof macallim ah ama qof kale haddii aad tahay, waa in aad ciyaalka aadan dhibaataynin, maskaxda aadan ka rafaadinin, jidhkoodana aad ku xadgudbin. kolley waxaa hadda kuu muuqdo calaamadaha waa ilmaha tacaddi lagu sameeyey weeyo. hadda ka hor nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa u yimid nin carbeed oo dabcan saxaabi ah. wuxuu yidhi wiilkayga ayaan rabaa inaan xudun xidh u sameeyo, waxaan rabaa in aad goobjoog ka ahaatid. nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ilmahaaga oo dhan sidaa xudun xidh ma u yeeshay? maya ayuu yidhi. ilaahay ka cabso oo cadaalad u sameeya awlaadiina ayuu dhahay nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam. haddii marka halkaas waxaad ogaan kartaa ilmaha inay cadaalad in loo sameeyo ayuu wuxuu yidhi. weliba xadiis wuxuu sii dhihi doonaa aniga jawrfal ha iga qaybgelinin oo markhaati ha iga dhigin. xadiid kale oo nebiga ka sugnaaday ayaa wuxuu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo saxaabada tujinaya in gabadhiisa ay dhashay oo loo yaqaano umaama bintu zaynab la dhaho, in uu nebiga marna uu xambaaran jiray markuu salaada dadka tujin kor u kaco, markuu sujuudahay dhulku dhigan jiray. halkaa waxaad ka garan kartaa in ilmuha meesha ay ka joogaan dadka muslimiinta ah. aayad quraana oo kale ayaa ilaahay wuxuu ku leeyahay asagoo nebi maxamed sifaynaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wa innaka la calaa khuliqin cadiim. waxaad nebi maxamedoo ku sugan tahay oo ilaahay kuga abuuray dabeecad wanaagsan. haddii aad tahay qof muslima, gaar ahaan macallim qur'aanka dhigaya haddaad tahay, bal ka waran haddii ilmaha maalin daa'ina aad sidaa u cadaabaysid. qayb ma ka tahay inaad nebi maxamed ku dayanaysid? dabcan bannaanka ayaad ka tahay ayaan islaah ani fikir ahaan. maxaa yeelay ma aha diinta islaamka mid dadka lagu cadaabo. waxaa la rabaa in la jeclaysiiyo qur'aanka, ilmaha la jeclaysiiyo, gaaladana ay necbaadaan ayaa lagaga baahan yahay. macallim iyo waalidow, inkastoon doonayo inaan maalin ka hadlo iyadana gaar ah waalidiinta habdhaqanka ay ilmaha oo la dhaqmaan.
waxaa lagaga baahan yahay macallim ama waalid ama qof kalow in aad ilmaha maskaxda aadan ka rinjiyeynin ood maskaxda u dhistid inaadan ku dhihin hadalla aan wanaagsanayn hadalla aan munaasab aan ahayn oo noloshiisa cunuga dhan dhulka la geli karta waxaan hadda kuu muuqdo waa ilmo la cadaabayo cadaab noocyadiisa kala bedelan ayaa ilmaha la marinayaa nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam ayaa xadiid kale ayuu wuxuu ku leeyahay laysa mina man lam yarxam saqiirunaa wa yuwaqir kabiirunaa naga mid maaha oo hadyigii ama waddadii sunnadii nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam ma hayo qofkii aanan midkaanaga yarkaana u naxariisanin midkaanaga weyna aanan darajaynin oona xushmaynin nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiid kale ayaa wuxuu ku leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo keenay weel ay caana ku jiraan bal erag gabadhan yantaa miskiinta ninka uu ku taagan yahay ka xoog badan uu kaga cabaadinhayo ninkaasi ma leh diir bini-aadamnimo ma leh waa bahal manaxa ah oo bilaa naxariisa weel baa loo keenay caana ay ku jiraan nebiga marka caanihii waa uu cabbay ama wuu dhamay midigtiisana waxaa fadhiyay wiil yar oo dadka meeshaa fadhiyay ugu da'yar odayaashii waaweyna dhankiisa bidixda nebigan sallallahu calayhi wasalam dhankiisa bidixda ayay fadhiyaan bal arag wiilkan yarkaa dharbaaxada loo qaadayo dhibka ka muuqda iyo rafaadka iyo cabaadka markaasuu wuxuu ku yidhi wiil yarow ma u fasaxaysaa odayaashan inaan caanaha aan siiyo wiilkiibaa wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayo maya fadligaada iyo deeqdaada iyo sharaftaada iyo barakadaada cidna iskama siinayo ayuu ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu caanihii ama weelkii u dhiibay markuu bogayna odayaashii ayuu ku sii wareejiyey markaa looma baahno inaad ilmaha hadalla aan wanaagsanayn aad ku tiraadid maxaa ilmaheenna duurka wada geliyey maxaa ilmaheenna bal odaygan intuu leegahay ee ilmaha gacanta ku humbaajinaya arag intuu dhan yahay ilaahay baa idinku dhaariye waxaa la rabaa ilmaha in maskaxda loo dhiso oo haddii uu wax khaldo cilmi nafsiga sidaad ogtihiinba waxaa la yidhahdaa cilmi nafsiga wax u qaybsama labo waxa loo yaqaano cilmi nafsi tarbawi iyo numuwi wax la dhaho tarbawi waxaa la yidhaahdaa waa cilmigan looga hadlo ubadka yaryarka ama wax kasta oo yarba bisadaba haddii aad si fiican la dhaqanto way kugu soo ordaysaa bal cunuga yarka macallimiinta ilmaha dhagaha intay qabtaan ayaa laga yaabaa inay fujiyaanba dhegta meesha ka fujiyaan cadaabta ay ku hayaan sidaa darteed bal ninkan arag gabadha yariista ee derbiga ku tiirsan ee tahdiidka ku samaynayo cagajulaynta bal ninkan arag inta xanaaq ka tira batay wiilka yankan soo qabtay dhagaha ka garaacaya bal midkana arag xasadka waa manaxayaal oo doonaya dunida in laga qabto da'yartii ilmaha qaarkood in baalash loo diro oo lagu tuugsado maaha qaarkood in suumanka lala dhaco iyo gurumada iyo ula aysan xamili karin ma aha ka waran cunuga sidana kam intee la-eg ayuu dareenkiis doorsoomayaa waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo ciyaalka waanu kari weynay duurka ayay qaadeen ayaa suuragal ah inaad mar kasta ku andacootid adiga ayaana duurka geliyey sabab adigaa u ah ama waalid ha ahaado ama macallimka ha ahaado bal cunugan sida loo gala si loo tumaya arag dhibaatada lagu sameeyey arag tacadiga xadgudubka loo sameeyey arag maxaa yeelay nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiid ku leeyahay yasiru walaa tucasiru bashiru walaa tunafiru waad garanaysaan yasiru walaa tucasiru war fududeeya ha ku adkaynina waa bashiru dadkana wanaag iyo uga sheekeeya horumar iyo maskax iyo khayr iyo wanaag iyo janno uga sheekee
sidaa darteed ha dili ilmaha